Rabadaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena diblomaasi oo aynu ku eegayno hadalhaynta ugu badan ee adduunka maanta dowladaha ka socota iyo falcelinta dowladahaas ay ka falcelinayaan duqeyntii maalinimadii shalay iyo daraad ruushku duqeeyay magaalada caasimadda Kiev iyadoo uu ku sugnaa xogayaha guud ee qaramada midoobay. Inkastoo mar isaga la weydiiyay xogayaha guud ee qaramada midoobay uu sheegay weerarkan isaga inaan loola dan lahayn balse uu yimid dal uu ka socdo dagaal dabeecad ahaanna ay caadi iska tahay in xilli walba gantaalo la isu adeegsan karo. waxaana uu sheegay caafimaad ahaan isaga iyo kooxdiisuba inay caafimaad qabaan nabadgelyana haystaan balse waxa uu sheegay xogayaha guud ee qaramada midoobay inay tahay wax aad looga xumaado in gantaallo ay ku soo dhacaan dad aan iyagu warba u hayn in gantaal ku soo socdo. dowladaha adduunka ayaa bilaabay falcelin ay ka falcelinayaan arrinta. dowladda Jarmalku waxay sheegtay dowladda Ruushku inaanay wax ixtiraam u hayn ururada dawliga ee adduunka lagu midaysan yahay kuwaasoo loo baahan yahay in la siiyo ixtiraam gaar ah kuna ixtiraamto ugu yaraan inta uu joogo dalkaas iyo qaas ahaan magaaladii uu ka joogay. waxay sheegtay dowladda Jarmalku xogayaha guud ee qaramada midoobay inuu yahay shakhsiga ugu sarreeya dowladda adduunka loogana baahnaa dowladda Ruushku inay muhiimad gaar ah siiso kuna ixtiraamto ugu yaraan inta uu joogo dalkaas iyo qaas ahaan magaaladii uu ka joogay. waxay sheegtay dowladda Jarmalku tan inay fariin ku socoto caalamka oo dhan tahay inaan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin aanu cidna ixtiraam u hayn sababta uu sidaa u sameeyayna ay tahay inay ku tusaale qaataan dowladaha kale oo aan iyaguna u fadhiyi doonin wax ixtiraam inay helaan maadaama ay qaramada midoobaba weyday. sidoo kale duqa magaalada Kiev Vitali Klitschko oo ah feeryahan hore oo caan ah ixtiraam weyn adduunka kule ayaa sheegay in khasaaraha shalay ka dhacay magaalada Kiev uu ahaa kii ugu weynaa ee ka dhacay tan iyo markii ciidamada Ruushku dib ay uga gurteen agagaarka caasimadda xilligaas oo ay sheegeen wajiga labaad ee dagaalka inay xoogga saari doonaan gobollada ku yaala bariga dalka Ukraine waa gobollada Luhansk iyo Donetsk dhawaantan ay u aqoonsadeen inay yihiin dowlado madax bannaan. haddaba gantaaladii shalay iyo daraad la dhacayay magaalada caasimadda ah ayaa kii shalay waxa ku dhintay hal qof waxaana ku dhaawacmay in ka badan 10 qof iyadoo ay jiraan burbur soo gaaray guryo dhaadheer oo ay dedeganayeen. inkastoo arrinta dowladda Ruushku taa ku macnaysay meesha ay weerartay inay ahayd warshad lagu sameyn jiray hubka ciidamada Ukrainiyiinta ah. isku soo wada duuba waxaan shaki ku jirin inay tan ahayd fariin dowladda Ruushku ay u direysay adduunka intiisa kale inaanay amniga qaran oo dalkeeda cidna uga tanaasulayn. inkastoo weerarka maalinimadii shalay iyo daraad ciidamada Ruushku ay ka fuliyeen magaalada Kiev aan xogayaha guud ee qaramada midoobay nafahaantiisu dhib u arag haddana dowladaha reer galbeedka waa kuwa buunbuurinaya kana dhigaya inay wax weyn halka ka dhaceen. ku sugnaanta uu ku sugan yahay xogayaha guud ee qaramada midoobay magaalada Kiev iyo haddii aanuba ku sugnaynba mar walba duqeyn magaalada la duqeeyay waa mid ay wax ka soo gaarayeen dadka rayidka ah balse reer galbeedka ayaa ka faa'iideysanaya tan una muujinaya adduunka Vladimir inuu yahay nin aan cidna ixtiraamayn. daawada muuqaalka like saar mahadsanid. Rabadaan wanaagsan.